waa idin salaamay dhammaan daawadayaal. muuqaalkiina maantay wuxuu ku saabsan yahay qaar ka mid ah carruuro iyo dad badan oo ka badbaaday halistii ugu darnayd ee imid soo marto ayaga. intaada u geedgelin muuqaalkiina waxaan ku codsanayaa inaa inoo saartaan daawade sabskaraabta. waa iga codsi mar kale inoo saara sabskaraabta. muuqaalkiina koowaad wuxuu ku bilaabanayaa tuugan dhacaya gabadhan, isla markiina uu ku soo boodayaa gabadhii isagoo qoorta ka qabanaya bistooladiisa. waxaana hortiisa taagan 2 nin oo askar ciidan booliis raashiyaan ah. ninkii tuuga ahaa saad aragno wax yar kadib waxaa gadaashiisa ka soo baxaya in si xun u galay tuugii, badbaadinayana gabadhii. laakiin wax kasta sidii hore ma ahan. waxaan arkaynaa in ninkii gabadha badbaadinayay la kala tuuray, lagana celinayo ninkii tuuga ahaa. kasii daran oo 2dii nin ee booliiska ahaa markii hore sidaan, hadda waaba sidaan. marka meeshaan waxaa nooga cad in la duubaya filin ninkaana uu ku soo qaldamay goobta, waana la raaligelinayaa. muuqaalkiina xiga daawadayaal, ninkan iyo gabadhan shiineeska ah waxay taagan yihiin goobtaan. si lama filaanana waxay ku arkayaan cunug yar oo ka soo dhacaya dhismahan dheer, waxayna ku wada ordayaan badbaadinta cunuga yar. wax yar kadib cunugii wuxuu soo dhacayaa, isla markiina waxay ku qabanayaan gacmahooda. saan aragno cunugii waa loola ordayaa, waxaana la geenayaa goobaha caafimaadka. cunugiina waxaa laga soo sheegayaa inuusan waxba qabin, yacnii waa la badbaadiya camal. maamada iyadoo faraxsanaya goobta kasoo tegaysaa dhashay cunuga. dadkan oo kale maxaan dhihi karnaa daawadaya. muuqaalka xiga daawade, dalka Faransa wiilkan yar wuxuu ka soo dhici rabay dhismahan dheer, weliba asagoo keliya meel yar ku dhegan. waxaana saan aragno ninkan naftiisa oo halis u gelinayaa badbaadinta cunuga yar. ugu dambayn wuxuu ku guulaysanayaa badbaadinta cunuga yar. maalmo kadib ninkii wuxuu abaalmarin u helayaa inuu la kulmo madaxweynaha dalka Faransa Macron. casuumaada dadka oo la kala kulmo, meel walba lagu arko oo lagu wareysto laguna ixtiraamo. keliya wuxuu sameeyey daawade. muuqaalka xiga, cunuga yar wuxuu la socday waqtigiisii hore waalidkiisa intoon la imaan jaranjarada horteeda. waxa kadibna wuxuu imaanayaa jaranjarada horteeda asagoo raba inuu koro jaranjarada, balse waxaa ka soo sokeeya jaranjarada wax yar oo guda. haddii mar lugta lala galo u salaamay tahay. isla markii waxaa ku soo ordaya nin ka mid ah shaqaalayaasha iskuwiiradka. wuxuu la badbaadinayaa cunugii. hadduusan cunugan badbaadin lahayn iskuwiiradka, cunugan waa ku day lahay, meeshuuna ku bixi lahay. tusaale ahaan ninkan ay ujeedidee odaygaa wuxuu soo gelayaa jaranjaradan, waxaana lugta ku gelayso jaranjarada ayadoo qabsatay, weliba lugta ugu dhegtay. marka cunuga yar hadduu mar la geli lahay lugta, asiga dhan aaba lug leeg weena ku dayn lahayd laftiisa. marka waxaa badbaadiyey shaqaalahan shaqadiisa uu qabsaday. muuqaalka xiga, gabadha yar waxay ka soo baxaysaa guriga ayadoo toos u aadaysa isweymin buulka, weliba dhex gelaysa isweymin buulka. cabsana mayso, laakiin gabadha maadaama ay yareed way biyo cabaysaa. ninka agdhowaa goobta ayaa isla markii ka soo badbaadinaya biyaha, uuna ka soo bixinayaa ayadoo suuxsan gabadhii. maalmo kadibna waxaan arkaynaa gabadhii yareed oo caafimaad qabta, iyo waalidkeed oo abaalmarinaya ninkii soo badbaadiyey gabadha yar. muuqaalka xiga daawade, dhulgariir ayaa dhacaya, waxaana qolkan ku jira dhallaan yar. waxaana u imaanaya hooyadii oo ordaysa, isla markiina way ka qaadanaysaa ayadoo ordaysa lana cararaysa. laakiin meeshii ka qaada waxaa ku soo dhacaya saqafka gore ee guriga. hadduu sii aali lahaa dhallaankan yar, kullii wixii ku dhaca idinka waa dareemi kartaan. hooyo marka la'aanteed waa abaar. muuqaalkeena ugu dambeeya, dadkoo dhan waxay riixayaan tareenka. hala yaabin waxa loo riixayo, anaa idin fahansiinaya. ninkan odayga ah ayaa wuxuu rabay inuu raaco tareenka, asigoo lugta la waanaya tareenka, hoosna gashanaya saqafka hoose ee tareenka. kaaga sii daranoo tareenka waqti buu ku dhaqaaqaa. ninka haddaa laga bixi waayo wuu ku daynayaa camal, ama lugtaasaa jabaysa. ninka agdhawaabaa dadkii o dhan iskugu wacaya si ay u badbaadiyaan odayga, waana la wada riixayaa. waatar markaa sababta loo riixayay tareenkii haddaayay ilaa odaygii laga badbaadiyo. asxaabay muuqaalkeena intaas buu ku ekaa maantay.
waxaan ka codsanayaa inaa mar kale subscribe-ta inoo saartaan haddaa weli inoo saarin haddaa ay saartani waa mahadsan tahay daawad